السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موقال عصب أسلوب تهذلك dadku waxa ay xayawaanku kaga duwan yihiin way fikiraan wayna hadlaan wayna is ixtiraamaan bulshadii aan is ixtiraamin ama israali galin waxa ku badan kara qas iyo nacayb dhexmara dadka isla nool bulshadii aan is qadarin waxa laga yaabaa in ay aakhir ka burburto maxaa yeelay xiriirka ka dhaxeeya dadka ayaa xumaanaya haddaba si uu u tooso xiriirka idinka dhaxeeya dadka kale waxa haboon in aad garan karto baahida dadka aad la dhaqantid talooyinka soo socda waxa ay ka caawin karaan in aad raali geliso dadka aad la nooshahay wanaaji hadalkaaga haddii aad dadka sheeko la gashid dhageyso waxa ay kuu sheegayaan oo ka bixi jawaab ku haboon ha caayin dadka iyo fikradahooda hana badin hadalkaaga haddii aad weerarto waxa ay dadku aaminsan yihiin way ka xumaanayaan waxba ha ka sheegin qofka naftiisa haddii aad qofka kale wax ka sheegtid isaguna wax buu ka sheegayaa waana isku xanaaqaysaan baro inaad tiraahdid raali ahow haddii aad aragto in uu qofku ka xanaaqay ama uu qofku ku dhibsaday dheh fadlan marka aad wax ka rabtid dheh mahadsanid Allah subhanahu wa ta'ala khayr ha kugu jaseeyo marka uu qofku wax ku siiyo ama uu wax ku qabto haddii aad qof qalin ka amaahatid dheh mahadsanid marka aad u soo celiso qalinka waxba ha ka sheegin waxa uu qofku jecel yahay haddii Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu diiday ama uu mamnuucay aysan ahayn qof waliba waxyaabo gaar ah ayuu jecel yahay markaas ha caayin oo qofku kale waxa uu jecel yahay waxa wanaagsan in aad adiguna u sheegto waxa aad doonaysid ama aad danaynaysid haddii waxa uu sheegaya ay yihiin wax aanan waxtar lahayn si tartiib ah ugu tag ha u faanin dadka waxa ceeb ah in uu qofku ku faano qoyskiisa xoolihiisa iyo naftiisa ma fiicna in uu qofku is cajabiyo ama isla fiicnaado waxa aad haysato Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku siiyay qofka kalena u diiday uma waayin waxa uu siiyo qofka kale ka aamus haddii muran idin dhaxmaro qofka kale muranku sidiisiba faa'iido ma keeno ee dhibaato ayuu dhaliyaa haddii ay doodu qof idinka dhaxmarto waa in aad tiraahdaa waan kugu raacsanahay meelaha qaar laakiin qodobkaas waan kugu diidanahay ha ka riwaayadaysan dadka qaar baa ku ciyaara dadka reer miyiga ah iyo dadka waayeelka ah haddaba adigu si daacad ah ula xaal ama ula dhaqan dadka iskana ilaali khiyaanada iyo nifaaqa. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.